laga isticmaalaa waxa la yiraahdo caalam al-awraaq ama shahaadooyinka iskuulkana xagee shahaado ka helaysaa waa su'aal wanaagsan waxaan ku rajo weynahay on hadda iskuul kale oo ku yaala Mandera baan la mataanaynay iskuulkan waxaan ku rajo weynahay marka ardada imtixaanka 8 ka fariisanayo dalka Kenya hadduu Ilaahay yiraahdo inay ka mid noqdaan oo ay shahaadada dalka Kenya ay qaataan waxaan kaloo ka rajo qabnaa oo xiriir u noo socdaa dalad la yiraahdo SAFE oo ka jirta dalka Soomaaliya ayadana insha Allah ta'ala shahaadadaasna inaan ardada siino waan ku rajo weynahay hadduu eebay Jamaal oo aan si raaci intaan ka bixin gabadhii ayayna joognaa maadaama adiga ka timid wadankaas Ingiriiska aan ka mid tahay jaariyada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan maxaa ugu baaqi lahayd dadka oo laga kula eeg jaamacadda Yaas waxaan horta dadkayaga ugu baaqaya hadduu Ilaahay yiraahdo iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan u soo jeesano dalka dhismihiisa dalkan annaga u baahan waana u baahanay carruurtayada inaan ku soo celinaan rabnaa haddii aanan annaga hadda aanan dib ugu soo noqono carruurtayada aanan ku soo celino waxbarashadii aanan ka qayb qaadanin caafimaadka aanan ka qayb qaadan biyihii aanan ka qayb qaadan dabkii aanan ka qayb qaadan horumarinta waddanka haddaanan ka qayb qaadan dalkan ceelna uma qodno cidina uma maqno marka waxaan ku boorinayaa qof walba oo i dhegaysanaya oo ama deegaankan hadda aan ku noolnahay oon ka hadlayna hadda aan iskuullada ka furnay ka mid ah inuu ka qayb qaato horumarka waddanka kale oon ku sii daraya oo sharaf ii ah inaan halkan aan ka sheego waxbarashadan hadda maanta aan iskuulkan hadda maanta aan wakiilka uga ahay jaaliyadaha dibadda waxaan kale oo wakiil uga ahay waxbarashada high schoolka ee hadduu eebe idmo jaamacad laga furayo magaalada Baardheer ayadana waxaan ka ahay xubin firfircoon baan ka ahay waxaana ku rajo weynahay dugsiyada sare markii uu eebe idmo ee gada ka soo baxo inay jaamacadaasna halka ay si toos ah ugu xaroon doonaan marka dadka dibadda joogo waxaan aad ugu boorinayaa oo ama maqal igu arki doono ama muuqaal igu arki doono ama maqal igu dhageysan doono waxaan ka codsanayaa wadankooda inay dib ugu soo noqdaan inay wadankooda ay horumarsadaan inay wadankooda ugu fikiraan inay jaamacado ka sameeyaan inay wadankooda ugu fikiraan isbitaallo inay ka sameeyaan inay wadankooda ugu fikiraan horumarkiisa inay ku fikiraan Jamaal waxa jirto halkaas su'aal ka soo baxayso waranaysa maadaama iminka isku mashquulinaysa in jaamacad ka furtaan magaalada Baardheer gobolka ma lahan dugsi sare ama dugsi hoose dhextayaal sidee marka ku suurtagelaysaa in jaamacad laga furo حلي عبد الفتاح وما صنتها حلي كان هذا اللي جوجو دوكسي هذا السرق وضع مجال قبل كجدو waxaa ka jiro dugsi alcada ka jiro iyo dugsi hadda Baardheer ka jiro labadaas dugsi ba hadda ku xisaabtameen laakiin hadduu eebe idmo howlaha wana dugsi sare inay next year yeelato hadduu eebe idmo garbahareyna inaga yeelato sanadkan soo nagu soo aadan hadda baan ilaahay baan ku tashanayna jaamacadina aan u furno ardayga uu dib dambe uusan u aadin ama Kenya ama Muqdisho ama meel kale uusan u aadin hadduu ilaahay yiraahdo kaasi uu maadsan wuxuu ahaa Jamaal Maxamed oo ubax leh oo inagu warramay qaabka ay ku doonayaan inay ku horumariyaan gobolka Gedo iyo waxbarashadiisa ayagoo iminka dhawaan ka furay iskuul ku yaala degmada Beledxaawo oo dugsi hoose dhexe ah rajaynayana sida ay sheegeen inay sii horumariyaan ama santahay Jamaal thank you very much aad u maasantahay halkaas waa halkan waxaan guriyii ugu dambeeyay ee magaalada Beledxaawo ayaa soo dhaafnay iskuul kor ka soo markor meeshaan waxaa idiin muuqda kan waa darbigii iskuulka aan waa bari oo rabno inaan gudihiisa galno halkan waa jidkii wadadii galaysay sida idiin muuqata iskuulku wuxuu ku yaalaa magaalada banaankeeda oo magaaladii waa ka yaraa duruqsan yahay waxaan hadda galaynaa ilinkii weynaa ee iskuulka ilinkaas oo ku wareegsan ilinka gawaarida la geliya mooga inta kale silig iyo udub iyo tiirar la shubay iskuulku wuxuu haystaa barxad aad iyo aad u weyn waxaa kaloo idiin muuqda dhismihii ka socday iskuulka haddaan ka soo bilowno dhankaa waxaad arkaysaan waxaa weeye baraagtii iskuulka waxaa kaloo aragtaan taashkii iskuulka iyo labada musqulood
laba musqalood ma ogiyo iskuulka wuxuu kaloo leeyahay laba musqalood oo kale iyo dhallinyaradii magaalada idin muuqdo Cabdifataax dartaana waxaa idin muuqdo waa darbigii weynaa ee iskuulka waxaa dhankan ku yaala baraagtii iskuulka sida hore u sheegnayba daashkii iskuulka idin muuqda iyo laba musqalood oo loogu talagalay wiilasha waxaa kaloo iskuulku ka kooban yahay dhowr qol waxaa kaloo ku yaala laba musqalood ayaa dhanka ku yaala waxaan samayn doonaa qol walba waan tusi doonaa waxaa idin muuqda qol walba horey inuu ka leeyahay daaqado gadaalna uu ka leeyahay dabcan daaqado uu ka leeyahay oo ay fiican tahay conditionka hawada maadaama carabku u baahan yahay layl fiican iyo naacow waxaan samayn doonaa hal qol oo ka mid ayaan geli doonaa saa idin tusno sidii ogyihiin qolalka iyo kuraasa taalla sidaa og tahay qolku hadday fasalladii weli lama assign garayn lama sheegin kalaasyada iyo waxay kala yihiin marka labadan qolkan ayaan geli doonaa insha allahu tacaala hadda waxaa idiin muuqdo 8 qol bilowgoodii waxaan samayn doonaa dhowr qol baa furan laakiin waxaan ku ekaan doonaa qolkan maadaama qolalku iswada ay wax yar ay kala weyn yihiin laakiin badanaa isku baaxad waa isla tahay qolku waa kana sabuuradii kalaaskan waxaa kaloo idiin muuqda waxaa kaloo idiin muuqata qolalku inay leeyihiin laba daaqadood oo gadaale iyo laba daaqad hore si ay leyrta iyo hawadu fiicnaato waxaa kaloo idiin muuqata halkan ardaydii oo fadhida say wakaan lahayd kolba dadkaan ardaydii ma hadda iskuulka weli lama furin laakiin kuraastii ayaa idiin muuqata marka say wakaan lahayd ardaydii oo fadhido maan hadda qiyaas ahaan idin tusayna arday waxbarata badan horey fadhidaa marka raggaan hadda qolkaa waxaa yaala ilaa iyo 12 kursi arday kor waxaa idinka muuqda waa jeendadii waxaa kaloo arki kartaan inuusan lahayn safiito kan ku arko waa ka maqsuudila